shir jiraayad oo maanta si wada jir ugu qabteen magaalada Ceelafweyn odayaasha ayaa waxgaradka guddiga dhexdhexaadka ahayd ee u joogeen baryahan bannabadeynta labadii beelood ee dirutu ku dhaxmartay qaar kamid ah deegaanada degmada Ceelafweyn ayaa maanta waxay shirkoodan kaga hadleen halka ay marayso haatan xaaladda nabadgelyo ee degmooyinka Dararweyn iyo Ceelafweyn isla markaana waxay xukuumadda ku cambaareeyeen inay xukuumaddu ka cagajiidayso nabadeynta beelahaasi waxay kaloo odayaashan iyo waxgaradkan ku eedeeyeen ciidamada qaranka ee goobahaasi ku sugan inay ula dhaqmeen shacabka beel kamid ah beelahaasi si ka baxsan sharciga taas oo ay dhaliisheeda ka hooyeen xukuumadda Soomaaliland oo aan doonayn in nabad ka islaaxdo deegaanadaasi waa siday hadalka u dhigeen iyagoo amuraas ka hadlayna wax hadaladoodii kamid ah waa looga go'aankaynu halka dawlad iyo shacab lagu kala tagay annagana naloo reebay oo la yiri halkaas oo fadhiyay waxaanu idin sheegaynaa oo saaka aanu bayaaminayna oo cadaynayna inaanay dawlana arrinta dib ugu soo noqon beelaha reer Soomaaliland ee arrinta ogaana aanay dib ugu soo waxaanu intaa haynay وهبيني مالين وجوريني ومال والبوتيني والله يبدأ وتجيني ده كان نبديلي سيدا نهارو هبين وجتاجنين لا بلا منك وحنا سودرسي إذا مدي قريكا إن فلك قدام بيجي الدر وين يا بابولين دعوين هراء بدن أو رلقوا عقابي أو ما تلقوا عقابي أو قارنا أو واحد بدك كلنا إذا مضى laga bilaabo iminka arinta haddaan odayaashinahay arrinkii aan fara ku haynay waanu ka baxnay waxa wixii ka yimaadana dawladdu ka mas'uul taa waxa la eebnayaan loo qaadan mushkilad kalena maaha inaan dagaal abaabureynana maaha inaan wax xumaynayna maaha waxa weeyaan duruufada iska yimid darteed weeyaan arinta xukuumadda ka mas'uula sida markii hore u qaabilsan iyadaan uga baxayna waxaan leenahay anagu beeshaan u sudiray beeshaan horjooga ka ahayn beeshaan ilaalinayni beeshaan nabadeeda macnaha aanu gacanta mar hadii halka marayso dhufayskeedu halka marayo maantana de kulay la dirayaal xagga ilaahay uu la dirayaalaanu ka waxaan leenahay maanta laga bilaabo mas'uul kama nihin waxaan saaka sheegaynaa waanu biyaaminaynaa hadii dawladdu arkaysa inaan geedka iska fadhino saakaanu ba idinka tagna mas'uul kama nihin hawshii aanu gacanta ku haynay ergadana waxay ka kooban tahay gobolka oo ilaa Garadag Ceelafweyn Arigaabo way ku dhameystiran tahay waa la yaqaanaa ciiday beeshaasi waa beesha Muuse Bokor bari baa la yaqaan ee fadhiya Ceelafweyn cid waliba waa macruuf xaaladaasi wax faraahi loogu jirto ma jirto nasiibkeeda qabtaa mas'uul kama yihiin laga bilaabo saacadan xukuumadii aanu garabka ku hayneenahay inta waxbay dhameystiraysaa mayadii baa la isaybatay hulaab dambe agteeda loogu leeyahay Ahmed Mursal Askar TV ga caalamka Universal Ceelafweyn